قفنا علي ور وانكو قادني مالين إيه هبين مدحت نو سارن shabadan oo go'aan laho gobolka wajeer hormar gaarsiinaya kiisi weerar u doorta mar kale gafane ningara shabadan oo go'aan laho gobolka wajeer hormar gaarsiinaya kiisi weerar u doorta mar kale gafane sabuley kasta bananaytiif goobta reer wajar hidigood weerar wey u gudooye koyihii habaas weyn sabuley kasta bananaytiif goobta reer wajar hidigood weerar wey u gudooye Kesi weerar katamaha mulkiya garwadeenimada waa nin garanayo xilka guudan kare Axmed Cali Mukhtar kesi weeye u doorto mar kale gafane weerar بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمين تي مرتي شرفت الله نوي ماتي سلامت إسلامك أيضاً سلام من مرك كوات مرك لواد ومهتسنتين مرتي نوي ماتي وحيني شيء قفنا على وير مانك مقعيس لشيء إيمانتا أنا هذا رنتك على دي جيجا سعود سيد قفنا على وير وانكو قادني مالين إيه هبين مدحت نو سارنته مدة لبعض نوال بوا موقف بوله مامدا لدها نصري وان قادني إذا نقف نوعي ما ذكره ومهينا لبا قبدوده وقادين ما كلا جعلان كرنا مدة لبعض جري أنا وابري وقاي نسقانا دلوا دقوا باهلا هاي بسلان تقول سيد جري وها إيشوا ويبقى كلا دادن هاين إن مدة كلا جري أنا ومن الحق بونقول إن دورنا أفر إلى 20 ساعة waxay dantaa inu ku jirnaa maracna gabadha Nasrila waan doorane mar aan daaynayna malaha anaga midaada kala bahgari hadina la dhaha ballanqaad run oo tir runteedo sida xaqaaniga aan naqaana moogi ma naqaana ballanqaad intii laga taga xaq la istaaga ogaadeen cid ugu ballanqaad wanaagsanaan mar hadaa aydan qaadne waa aydan qaadne Nasri iyo maxaa la jiray mushmaa cali weer madaxad noo saarantiin waxa kale dadkana cad buu meesha ku tagaa Axmed Ciise jooga waxa jooga Corow Cabdiraxmaan Cali Xasan marka walaalayaal martida sharafta waa idan salaane waa idan qaadne leen abkiina uu saxsay inigoona soo gaarin aan 20 bari sidan u taagnan cali weer gormo imaan raba xaraad siraada lagu hanoo galay wuxuuna dhihi bari u iimaanay ab xaraad gormo bari dambu iimaanay baatiyaaka waan rafaadnay marka dambe waan iska daayna ilaa aan soo wacay cali guray cali chief galey aan soo wacay war cali waxaan masaxba maswaabeen waa sax u ilaahay waan soo soconaa ballan waxaan kaaga qaadan ku dhahe hawaaswayna rideedana kaaga horimaad baatiyaaka maanta gaari dhaqso bixaa waan wayn inaa hawaaswayna idinku ugu imaanaa ballantaaynaheed marka waa idan dhisaynaa kuura waa idan siinaynaa habeen iyo maalin waa ila taagan insha Allah kariin inagana waxa idan ka codsanaynaa markaad soo gashiin gurigan wayna ka badan loo qoqfil sidaadka intii la saaranin inta u socoto lagu leeyahay naga daa ma rabna maxaan rabnaa ku faam qofka aan dooran inuu banaanka noo soo istaago aane 4 saaco habeenimo ka tagay afa ma soo gaabinay suuq maxdu degdegsani
أفر ساعة هبني ما كتجي بقرة وجارن تج وحي صاقل حسين عبد الرحمن دهير بس أنا كارك سيدا أنا أورادينها وأنكو صوتك وأنكو صاقل بعض مركي عاديني ما نوي ماتين وايضا وناجنا وايضا شرفنا وايضا قدرنا مركات كرسي قشين البابي هذا حرنا يصير نقدها أنا أحمد علي مختار أركيننا ننكل النافع ديقو قاديني ماذا بلاش معها قفت لما قادين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gacanta aan isku salaano dhamaanteen gacanta aan isku salaano gacanta aan isku salaano aad baad u mahadsantiin salaan kadib aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida fiican ee aad noo soo dhaweyseen reebo qoreeyanahay aniga reedilmaalay reehooseen hadaan ay soo reebo qoreeyay wiilka la eedin wado maanta oo adeerkeena maxamuud injineer maxamuud sheekh nuur odayaasha uu ka mid yahay oo OAC ay idin keeneen waa nin reebo qoreey nin la idin sheegayo cusub aad garanaynin ma horta reebo qoreey marka wiil reebo qoreey diyaar u soo matiin inaad doorataan aad baad u mahadsantiin weerar waa nin ari jir ah lo jir ah geel jir ah ama xoolaaleeya haddaan soo koob sidiinoo kale ma aha nin hata tuulo ku dhashay meel dheera boombe la dhaho maantaba baadiya aan ku dhashay horta aniga marka nin kor idinkaga imaaday ama magaalooyin inta lagu soo dhalo carab ah horta maay ninka aad arkaysaan oo ariga meeshan ku raaci jira markuu secondary hata dhiganay ayaan nahay oo si fiican u garanaysaan lama rabo dhalinyarada yaryar inay garanaynin waa suuragal laakiin waxaan la hadlahayaa dadka waaweyn ee reebo qoreeya si fiican ay garanayaan aabbayna waad garanaysaan sidoo kale waa nin haddaba loodiisa inay meelahan ka fogeen laga yaabo inkastoo dhulka uu iska abaaraystay oo noogahay abaqoreey roobka inuu ku yaraa ilaahay roob hana siiye loodiisa meelahan kama fogo marka intaa waa wixii tacriif ah 5 sano la soo dhaafayna waxaan ka ahaa county-gani deputy governor county-gan taariikh ka tago insha Allah ta'ala waxaad u horeyni doono ninka aniga deputy governor ah sababta aanu leehayna waxa waaye deputy governor wuxuu yahan soo arkay sida la ila soo dhaqmay aniga ma rabo inaan ula dhaqmo deputy governor-gayga sida daraadeeda nin waxaan rabaa aan xoojiyo portfolio aan siiyo reebo qoreey markay wax ka soo maagan wax uu qaban karo inuu noqdo aniga laakiin markaan deputy governor aha waxaan idin qaban karin ma laha sababtoo ay tahay nin waxaan ahaa jiqilka la geliyay oo wax weyn uu tari karo aan lahayn deputy governor-gana hadduu governor-giisa la shaqaynin horta tabartiisa waa taasi maanta dad badana u taratamaha governor-nimada aniga ayaa 8 ku ah 7 kale ayaa taagan intaasna mid ka mid ah ma soo galayo 8 nin kursi iskulma fariisanayso ninkaasina xaq ilaahay waa laga garanayaa waa qoran yahay marka bahasha horta yaanan gelinin sidoo sheegay governor-gii maxaa la dhahaa Eldoret Sangishu bahasha yaanan gelinin waxoogago yay aad noo xumaynina intaan langski meelaha laga neefsado aan gelino marka neefsanaba wixii xiqdi ah la baxo siyaasadda marka xiqdi kuma roono reed abaqoreeyna sidoo sheegay senataga waa dad ogaadeen oo isku xiran oo mid ah xumaan iyo dib uusan dhaxyaalin insha Allah ta'ala sida inaad ku waartaan ilaahay baan ka rajaynayna aniga marka maadaama aan ahaa deputy governor 9 biloodna aan ahaa governor county-ga Wajeer waxaan isleeyahay maanta waxaan nahay nin fahansan baahida ka taalo maadaama intaas ay igu imaanayso xafiiska baahida ka taalo Wajeer nin fahansan systemkii lagu xallin lahaa inaan ahaan isqaybaya sida daraadeeda waxaan rabaa in aad igu kalmaysaan kuurihiina markay dhacayso doorashada insha Allah ta'ala taariikh 9 bisha August si aan idinku khidmeeyo arrinka caafimaadka biyaha iskuulka qaybta hoose oo naasariga la dhaho maxaa la dhahaa xanaanaynta xoolaha iyo beeraha
وشغل كاونتيغا كبس أويال بيلان هداي دعدو بحال لوغا باهان يهي كاونتيغا انا wax ka qabato ward kan hadda aan joogna Abaqori intaan joogay waxa la idin keenay meeshan Genset Mary oo labada ceelba Genset la'aan ahayn waxaan geynay Genset dulgub gacantaydan ku geeyay ana la socdo maalinta la geynay sabeena aniga la socdo maalinta la geynay waa ward kan habas weyna kale aan joogno ceelasha dumeen oo wajiha South intaad garanaysaan oo wax ka qabanay maadaama aan xoojinayna ama xoog aan siinaynay arrimaha biyaha waxa kamid ah ceelasha dumeen oo sida saala kamid ah sida sheeba iyo qaruurax iyo maroodilay oo dhowr jeer intii la qoode horteedna biyo laga waayay oo aan ka soo saarnay ceelka ugu biyo badan wajiha South oo dhan caafimaadkana waxaa noogu muhiimsan isbitaalada wajeer ku yaala maanta isbitaalka referralka oo nin walba wajeer dhadajbuula iyo guraar inta u dhaxayso lagu soo rifaagareynaayo hadduu uu maaragtay xallin waayo ama laga daaweyn waayo isbitaalada yaryar ee ku yaalaan magaalooyinka yaryar isbitaalka asaga ahaa waa isbedelay city scankiisa shaqaynayo renal unit ka shaqaynayo radiology aan loo aadaynay Nairobi 9 biloodan joogaan inta sameeyna Gensetka iyo korontada arrinka isbitaalka sidaan u xalinay magaalada wajeer ayuu power siini karaa magaalada oo dhan isbitaalka mashiinta taalo waa 500 kVA 650 kVA markii lagu daro mashiin qaribneed oo horo taalo 150 sida daradeeda walaal waxaan idin leenahay kuurihiina noogu deeqa si aan idin kugu qeydmayno oo arrinka caafimaadka arrinka biyaha arrinka xanaanada xoolaha iyo maxaa la dhahaa beeraha aan wax uga qaban dadka nala tartamaya waa dad walaalaheena dib noo dhaxeeyo malaha laakiin wax ka socda wajiha South Ahmed Cali Weerar bas ayaa jiro Ahmed Cali Weerar bas ayaa jiro wax wajiha South ka socdo maadaama constituency-yada kale constituency walba laba iyo ka badan ay ka socdaan wajiha South ay ugu population badan tahay markii la dhaho maxaa la dhahaa kuura markii la dhahana hadda nin constituency-giisi uu u midaysan yahay waxaan umaleynaa constituency-yada kale haday laba yihiin subaxnimaan maraynaa Soomaan marka inoo midooba sida walaasheena sheegtana shuluq hadda team waa mar aan ka mid ahayn baa shuluq la dhihi jiray shuluqtaasi hadda naga daaya laakiin halaha aad haysan noogu shuba fadlan Abaqorina nooma aha markii noogu horeysay waxaan rabnaa inaan online upkeen idin sheegno annagana wajigeena maadaama odayaasha idin la socoto neelo soo tuso waan idin ku soo noqonaynaa annagoo line upkeena kaamil ah oo professor Nyanyura deputy governor gayga ay ila socdo oo ila socdo senator gayda oo ah senator Shalow Abdullahi Yahya oo ah asagana ninka ay soo qaadeen beesha ajuuraan oo isla socoto dhan marka cida ajuuraan boqolkiiba 80 line upkan ay wataan annagana haddii aan isu raacno waa subaxnimo Soomaan sidoo kale wajiha West waxa ka socda nin professor ah military ku gaaray darajada cornel oo ga baxay shaqada oo wajiha West dogoodiya ninkaasi markuu nagu soo biirana waxa way wajiha saddex geeski lagu ogaa ayuu ka kooban yahay line upkeena gabdhaha wajiha South ka socdaan kali way badan yihiin sida idin sheegto walaasheena ayaga kaliba 5 laakiin gabadha hadda Kenya Kwanza aan iskula jirno waa Maama Nasri afkeeda ay ku hadashay oo ku codsatay kuura ayadana hadda waa inaad aanan la halmaamin maamada ayadana waa inaan la halmaamin marka walaalayaal waxaan idin leenahay odayaasha waxaan jecelnahay cawada maadaama kulli aan idin la aan baryo doono halkan odayaashana cawada ayaan gooni ula fariisani doona insha Allah ta'ala waxay jiro si ay odayaasha iyo ayagana u wada hadlaan gabdhaha iyana kulli firaaqa hadii la helo ayadana laazim waan la hadlaynaa sababtoo ay tahay dadka kuuraha rido gabdhaha ayaana ugu badan uguna muhiimsan runtii marka waxaan jecelnahay insha Allah ta'ala ayagana inaan waqti u helno waxaananu ballan qaadaynaa dawladda aan dhisi doono ma aha hadda labadoo lagu daro ayadoo sharciga laga cabsanayo labada lagu daro in lagu daro ma rabno waxaan rabnaa si fiican dawladda aan dhisi doono ayagana gabdhaha inaan uga qayb galino